gabar qurux badan ayaa waxaa guursaday nin maalqabeen ah. habeenkii arooskooda ayaa waxaa albaabku soo garaacay qof. waxaa dhex maray qiso aad u yaab badan. haddaba intaynaan muuqaalka bilaabin, waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka si dhiirigelin noogu noqoto. hore u sii gal janalka si aad wax badan uga faa'iido. mahadsanid. gabar aad u qurux badan, dabeecad wanaagsan leh ayaa waxaa guursaday nin maalqabeen ah. habeenkii arooskooda ayaa gurigoodii waxaa soo garaacay qof. ninkii iyo naagtiisa waa ay yaabeen. ninkii ayaa yidhi, saacaddan waa kuma qofka albaabka soo garaacayo anagoo aawa arooskeenu cusub yahay. ninkii ayaa istaagay oo albaabkii furay. waaba nin tuugsanayo oo waxa uu codsaday cunto. ninkii waa uu xanaaqay. ninkii maskiinka ahaa ee tuugsanayay ayaa ninkii guriga lahaa waxa uu ku bilaabay garaacis iyo aflagaado. intaa kadib albaabkii ayuu ka soo xidhay. markuu albaabkii ka soo xidhay kadib, ninkii miskiinka ah uu iska baxay soo baahan oona u sii dheeryahay dhaabacyadii. subxaan allah. isla markiiba ninkii guriga lahaa waxa uu ku dhacay jinni oo waa uu waashay. naagtiisa ayaa aad u argagaxday, wayna ka soo carartay gurigii ayadoo qofna u sheegin sheekadii. waxayna u tagtay guriga aabbaheed ayagoon ogeyn waxa ninkeeda ku dhacay. aabbaheeda ayay u sheegtay wixii ku dhacay ninkeeda iyo wixii ay aragtayba. intaas kadib muddo ayay joogtay, ninkiina waa laga fasakhay. muddo kadib gabadhii ayaa waxaa soo doontay nin kale, waana la siiyey. markii guurkeedii dhacay, gabadhii waxaa la geeyey gurigeedii cusbaa. habeenkii ugu horreeyey ee arooskooda, ayagoo isla untaynaya ninkeeda ayaa sidoo kale haddana albaabkii qof soo garaacay. ninkii ayaa istaagay, waa uuna furay. waxaaba taagan nin maskiin ah oo dalbanaya cunto. waxa uu ninkii soo galay gurigiisii. waxa uu naagtiisa ku yidhi, albaabka waxaa taagan nin maskiin ah ee cuntadan u geey ilaa uu ka dhargana ha ka soo tegin. naagtii waa ay fulisay amarkii ninkeedii, waa ay u geysay dhammaan. waxayna ku soo laabatay gurigeedii iyadoo zaa'id u ooynaysa. ninkii ayaa yaabay. waxa uu ku yidhi, maxaa ku helay? maxaa waaye murugada? umaysan jawaabin. xoogaa kadib su-aashii ayuu ku celiyey. waxayna ku tidhi, ninkan maskiinka ahaa wuxuu ahaa ninkaygii 14 sano muddo hadda laga joogo. laakiin maalintii arooskeena waxaa albaabka soo garaacay qof maskiin ah oo tuugsanaya. markii uu ka furayna waa uu caayay, waana uu garaacay. maanta arasigaa ah midka tuugsanayo. ninkii ayaana markiisii zaa'id u ooyey. naagtiisii waxay ku tidhi, maxaad u ooynaysaa adigana? waxa uu ku yidhi, ninkaasi maskiinka ahaa ee la garaacay lana caayay aniga ayaan ahaa. walaalahayga muslimiinta ee daawanaya muuqaalkan, waxaan kula dardaarmayaa inaysan bakhiilin masaakiinta iyo fuqarada. waxaa laga yaabaa inaad adigana sidiisii camal noqoto. alla kuuma kasee. intaas ayaa muuqaalkeena maanta kusoo gabagabayn doonaa. muuqaalka xiga intaan kulmi doono, waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada. mahadsanid.